YouTuber ah ayaa waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markuu si bareer ah u burburiyay diyaarad uu saarnaa. Arrinkaana wuxuu u sameeyay sidoo u helo daawasho badan. Muuqaalkaas waxaa daawatay ku dhawaad 4,500,000 oo qof. Sidoo kale wuxuu been u sheegay baarayaashii kiiskiisa baarayay. Trevor Jacob oo ah 30 jir ayaa bartiisa YouTube wuxuu soo dhigay muuqaalka shilka ah December 2021 isagoo ula jeeday in ay ahayd shil. Muuqaal ayuu iska soo duubay isagoo baarshuud kaga boodaya diyaaradda. Ninkan oo horay u ahay ciyaartoy Olombikada ah ayaa horaantii sanadkan wuxuu qirtay in uu galay hal dambi taasoo ah burburin iyo u been sheegid baarayaasha dambigiisa. Ninkan waxay u badan tahay wuxuu falkan u geystay in uu baraha bulshada iyo warbaahinta uga soo caanbaxo ee in uu ka helo dhaqaalo. Waxay ahaataba ninkan waxaa loo diray xabsiga wuxuuna liinta ku cabi doonaa muddo 6 bilood ah xabsiga.